madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo Osaka ka soo kicitimay xarunta caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa maanta duhurkii socdaal ku soo gaadhay magaalada Berbera. wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga kulmiye oo uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. safarka madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku waajahan yahay gobolada bariga Somaliland isla markaana uu la xiriiro kuurgalka xaaladda nololeed ee ka jirta deegaamadaasi. waxaana socdaalka madaxweynaha ka warbixiyay afayeenka madaxweynaha Somaliland Xuseen Axmed Cige Xuseen Deyr oo isagu tilmaamay in socdaalka madaxweynuhu la xiriiro kuurgalka xaaladda goboladaasi. safarka madaxweynaha ugu waran bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo maanta wuxuu safar ku marayaa gobolada bariga ee dalka jamhuuriyadda Somaliland. madaxweyne Axmed Silaanyo inta taariikhda loo ogyahay oo madaxweynihii ugu socodka iyo safarka badnaa si uu uga warqabo howlaha qaranka baahiyaha bulshada iyo arrimaha ummaddu guud ahaanba siday u socdaan dalka gudihiisa. marka loo eego guud ahaanba baahiyaha bulshada Somaliland in laga warqabo dhinac kasta oo ay tahay waa lagama maarmaan. marka madaxweynuhu soo gudanaya hawlihiisa qaran ayuu maanta safar wuxuu ugu baxayaa ku maraya gobolada bariga. safarkaasina wuxuu daalan yahay inuu kuur galo howlaha qaranka siday dalka gudihiisa uga socdaan, baahiyaha jira, wixii laga qaban karo, adeegyada aasaasiga guud ahaanba safarka madaxweynuhu kaas ayuu daaran yahayna waana madaxweynihii ugu socdaalka badnaa ugu safarka badnaa ugu kuurgalka badnaa si uu ogaado baahiyaha bulshada iyo howlaha qaranka kulba meesha ay u baahan yihiin in laga bari taageero in wax laga qabto bulshadana uu dhageysto tabashooyinkooda dhageysto waxyaabihii loo qabanayo uu dhageysto kaas ayay ku saarin. madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay socdaalkiisa magaalada Berbera oo imika ku suganahay kabacdina gobolada bariga ayuu ku maraya hadii la hayraado. geesta kale maray warbaahintu wax ka weydiisay afayeenka madaxweynaha Somaliland in socdaalka madaxweynuhu la xiriiro campaign gareynayo xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda maadaama oo wiiga u dambeeyay uu campaign baani ka socday gobolka Togdheer ayaa waxa uu kaga jawaabay afayeen ma oran karaa waa horaantii ololaha xisbiga kulmiye oo leeyahay madaxweynuhu waa madaxweyne taariikhda ku galaya inuu hankiisii iyo rabitaankiisii inuu mar kale isa soo sharaxo isagoo xaq u leh ayuu wuxuu uga tanaasulay dadka daada yar leh hanka leh uu ku soo barbaariyay siyaasadda. madaxweynuhuna hadduu campaign galeeyay hadduuna campaign galeeyba hore ayuu u sheegay inaanu murashax ahayn. marka baahida ummadiisu meesha ay taalo meesha ay markaa wax ka qabad u baahan tahay ayuu madaxweynuhu ku kurgalay laakiinse olole uu cid ku dhisayo cidna uu ku fogeynayo madaxweynuhu ma soo bixin. way afhayeenin imika wax ku sugan magaalada Berbera bulshada reer Berbera waxay sheegayaan wasiirka howlaha guud oo muddo halkan maalmo joogay inuu maanta madaxweynaha ku siinay ganacsato oo dhul howlaha guud leeyihiin ay xukuumadda Yuunus Berbera ku yahay. arrintaasi aba yaraatay wax ka jira ma jiro. wasiirka howlaha guud qaranka u haya xil gaar ah oo ah inuu wasaaradda howlaha guud iyo guriyeyntu wixii dastuurka qaranku ku waajibiyay inay gudato. hadalkaasina waa hadal aan sal iyo raatoona lahayn. madaxweynuhuna magaalada Berbera waa magaalada ugu socodka badan yahay oo magaalada ugu booqashada badan yahay umana yimaado inuu iibiyo laakiinse Berbera inuu wax taro oo iyada uu dhiso madaxweynuhu u yimaado. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Somali Channel magaalada Berbera.